السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا صابرين محمد حسين وإذن شرح دونه بروتين ka waa sida sheegay kow waxaa kasoo sheegay carbohydrates haddana protein kadib waxaa noo sii herayo fats. Kusoo dhawaado janaalka ustaada Saabira. Okay, borotiinka aan ka sheekeyno. Borotiin waa nooc ka mid ah cuntooyinka aan cunno. Faa'iidooyin fara badan oo borotiinka leeyahay, qaybo badan oo u kala baxa. Borotiinka cuntooyinka aan ka helno way badan yihiin, laakiin inta ugu muhiimsan aan ka helno waa hilibka, malaayga, doorada, ukunta, digirta iyo caanaha. Caanaha waa borotiin. Borotiinka waxaa loo kala qaybiyaa laba qaybood oo muhiim ah: structural proteins iyo functional proteins. Kuwa qaab dhismeedka jirka ka qayb qaata iyo kuwa functional proteins oo noo sameeyo dheecaano dheecaanadaasoo shaqooyin kala duwan jirka u qabta. Faa'iidooyinka oo borotiinka noo leeyahay maxaa waaye? Faa'iidooyinka oo noo leeyahay waxaa waaye kow inaa energy ahaan u isticmaalno, inuu ka qayb qaato difaaca jirka, inuu ka qayb qaato koriinka iyo dayactirka. Hadduu lacala uu meel ka dhaawacmato meeshii ku kabsami lahayd waxaa ka qayb qaato borotiinka iyo waxyaabo badan, laakiin borotiin waa ka qayb qaata. Sidoo kale waxa uu ka qayb qaataa isku dheelitirnaanta biyaha jirkeena, yani balance. Haddiisan balancegan uu jiri lahayn qofka, yani kulli waa la wada bararsanaan lahaa. Alxamdulillah waa Ilaahay mahadiis. Shaqooyinka kale oo qabto waxaa waaye inuu sameeyo dheecaanadii oo ka qayb qaadanaya dhammaan shaqooyinka jirka ka socdo. Way fara badan yihiin faa'iidooyinka borotiinka, laakiin intaanan kusoo koobaynaa waxaan rajeynaa inuu idin anfacay mawduucan. Weli waxaan ahay arday, inkastoo aan si fiican u diyaariyey, haddana yaa lay qabanin wax haddaan qalday ma qaldamo Allah. Waxaa diyaarisay Saabiriin Maxamed Xuseen. Isma dhaafin qaraabo, mawduucyo badan waa soo wada insha Allah. Shaardha si dad kale ugu faa'iidaystaan insha Allah. Maca salaama.